hadaa hooyo tahay ama uur leedahay nuujinaysid ama ilmo haysatidba kulligiinba wuu inay anfacaya. hooyo hadaa tahay waxaad u baahan tahay inaad cunto dheeritirin aad cuntid, inaad nafsadaada adiga iska bilowdid. hooyo waa furaha guriga. assalaamu calaykum walaalaha qaaliga dhammaan igu xiran kanalka dhadhanka cuntada. waan ii salaamay walaalaha iga qaaliga ii soo dhawaada. haddaan nagu cusub tahay ha iloobin inaad subscribe noo saartid afamli ka mid noqotid, fadlan share garan insha Allah nagu caawiya si videoga walaalo badan uu gaaro inikoo mahadsan. maanta waxaan rabaa hooyooyinka ama ilmaha haysta ama nuujinayo ama uur kale maanta inaan quraac yar oo healthy ah oo faa'iido leh inaan uga faa'iiday. macna xitaa ilmaha wuu anfacayaa, ilmaha aan jecleen xitaa inay qudrad cunaan maasha Allah. hadaa wixii u naashtid way ka heli doonaan. ee walaalo fadhiiso koob shaah soo qaado, videoga ila dhameyso ila dhamaad. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontid inikoo mahadsan. maanta quraacda raba inaan iga faa'iideeyo waxay ka kooban tahay 3 xabo ukun ah, kaarooto, barbarooniga gaduudan, kabsar caleen iyo tomato iyo wax yar oo cusbo ah. asxaabay saad u aragtiin baaquligii aan ukunta ku haysto waxaan ku riday khudradii oo dhan. waxaan ka bilaabay karatada, waxaan ku xijiyay kabsar caleenka, barbarooniga iyo tomaatada. waxaan kaloo ku darayaa spinach aan iga iloobay inaan meesha kusoo qoro ama marka hore usii sheego. spinach ayaan korka uga daraa waayo spinachka aad ay ugu fiican yahay hooyada, especially hooyooyinka dhiigooda daciifka ah ama dhiigooda hooseeyo aad ay ugu wanaagsan yahay spinachka hooyooyinka uurka leh ama ma aragta hooyooyinka nuujinayaan. waxaan sameeyay markaan kulli aan isku wala shubay waa yara qaraacaysa, waa isku qasaysaa si fiican. markuu si fiican iskugu qasmo waxaad u baahnaan doontaa birta lagu kariyo doorshada yaryar, kaas ayaan isticmaalaya. sidaad u aragtiin halkaas ayaan soo dhigtay, wax yaroo saliid ayaan mariyay, kadib ma aragtaa qudradii ayaan dusha uga saari doonaa. waayo waxaan saa u sameynaya waxay tahay wuxuu kaaga soo saarayaa quraac yar oo macaan badan oona qurux badan. wixii waxaa fiican markaa cunaysid inuu jirkaadana wax u taraayo, indhahaadana qurux uu ku tusinayo, yacni ma aragtaa qurux aad arkaysid oo indhaha u roon yahay, ma aragtaa jirkiina caafimaad oo ma aragtaa vitamin ka helaysid. hooyada markasta waxaa fiican koo guriga inay iyada iska bilowdo, iyada ina maaragta nafsadeeda isku tashato. hadaa adiga maaragta quraac healthy ah oo wanaagsan aad cuntid, ilmihii quraac healthy aa siisid, odaygii aa siisid, maasha Allah waxaa noqonaysiin family oo healthy oo wanaagsan. laakiin hooyada hadii maaragta quraac wanaagsan ay cunin oo laga yaabo hooyada inay nuujinayso ama uur leedahay ama ma aragta oo hooyo ilmo haysata ay tahay. marka hooyo waa hooyo saa hore nigu dhahay. markasta waxaan jeclahay inaan hooyada aan waaniyo. asxaabi kadib waxaan geliyay ovenka, waxaan u geeyay 180 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaa ku haynaysaa meesha maasha Allah. sidaad u aragtaan kadib halka rooti iyo cheese ayaan kor saaray. rootigana waa rooti madow, dhinacna waxaan sameeyay orange intaan jajira ayaan u dhigay. wixii waxaaba indhihiina u qurux badan yahay, caafimaadna wuu leeyahay, vitaminna waa ka helaysaa. ma fahanteen? adigana markaa cunaysid waa ku raaxaysanaysaa maasha Allah. waxaad dareemaysaa cunto qurux badan inaad cunaysid. marka hooyada waxaaba nafsadeeda inay marka koowaad ay iska bilowdo. hooyada marka hadee quraacda iyada iska bilowdo energy bay yeelanaysaa. hooyada waa guriga furihiisa. hadaa adiga energy leedahay waxaaba the rest of the house ama guriga dadka dhan ma aragtaa way qabanaysaa. laakiin hooyo daalan hadaa tahay oo ma aragtaa oo waxba cunaynin ama ma aragtaa quraacdi aad sameysay laga yaaba inay ka dhamaato, maxaa la dhihi jiray wixii fiicnaa oo nafaqadi lahaa hadii aad odayga siisid markasta adigii aad marka nafaqa darre kugu dhacaysa. waxaa waaye ilmahaada adiga ay ku baahan yihiin, ilmahaada adiga ay ku baahan yihiin. nafsadaada adiga iska bilow. adiga hadaa iska bilowdid odaygana waa nafaqeynaysaa, ilmihina waa nafaqeynaysaa, reerkina ma aragtaa si farxad oo healthy ay ku waarayaan. marka ani markasta hooyooyinka waxaabay waan u sheegaa, waxaan dhahaa inaka iska bilaab. hadaa nuujinaysid marka ugu horeysa hadaaba tahaba hooyo uur leh ama aa nuujinaysid dadka adiga waxaabay dhinacaaba kasii tahaba. waxaa la rabaa extra inaad self care aad iska sii samaysid, yacni waxaa la rabaa adiga inaad si maaragta extra aad maaragta nafsadaada usii taxdirayso. waxaa hooyada marka ilma ay ku nool yihiin waxaaba ilmaha waxay u baahan yihiin koritaan. hadii ilmihii maaragta cunto vitamin aan siinaynin marka waxay noqonaysaa ilmahaas koritaankiisa waxba ka qaldamay.
marka muhiimada waxaa hooyada inay ma aragtaa ay cunto. marka hadaa aad tahay hooyo aan vitamin aan cuneynin, aan ma aragtaa aad cuntana dheelitiran aan cuneynin, fruit aad cuneynin, protein aad cuneynin, vegetable cuneynin, marka waxaa noqonaysaa hooyo daciifsan aan waxba qaban karin, reerkan waxba u tari karin, nafsadaadana waxba u tari karin. markasta aniga hooyooyinka waxaan ku waaniyaa adiga nafsadaada iska bilaaw, soo kac subaxii hore, markaa soo kacdo quraacdaada adiga sameyso, intaba reerka soo kicin, adiga soo kac quraacdaada sameyso, vitaminkaada cun, ma fahantay? kadib marka waad arkaysaa maalinta guriga reerka siduu ku dhamaado, kadib waxaad arkaysaa maalintaada siday noqoto, waxaa noqonaysaa hooyo karti leh, waxaa noqonaysaa hooyo energy leh, waxaa noqonaysaa hooyo markaasayta ma aragtaa wax kasta oo ma aragtaa hawsha guriga u fududaanaya, energy lahaanaya. laakiin hadaa waxba cuneynin waxaa noqonaysaa hooyo daciifsan. marka ani hooyooyinka waxaan igu waaninaya ama iga tagaya nafsadiina ka taxadara. waxaa waaye hooyo hadalkooda hadaan galo videoga ayaa aad noogu sii daaranaya. asxaabta waxaan leeyahay ha iloobina subscribe inaa noo saartiin, kanalkana aa sheega.